sida badan sababtoo ah wuxuu ku soo biiray goordhow kooxda kubadda cagta Brescia wuxuu maray ku dhawaad 9 gool ayuu marayaa tartanka gool ayuu dhaliyay sirada xal gool ayuu taabtay marka Brescia doonta 2 gool ciyaaraha hal gool ayuu dhaliyay Zadogian ciyaaraha lagu magacaabo gool ayuu raacsaday silamada kulamadii kale la ciyaaray horyaalka Bundesliga dalka Germany waxa kamid ah RB ciyaar kooxda lagu magacaabo Hertha Berlin iyo FC Cologne 5 gool maalintii shalay waxa wada 5 gool RB la 5 gool Cologne 5 gool Barcelona 5 gool wada 5 gool ayay ka dhacday marka intaas kulamadaas ayaa la ciyaaray horyaalka Faransiga agana hadii aynu eegno kulamada la ciyaaray baaqi sameeysan ciyaarin maanta ayaa la filayay in ciyaarto Marseille iyo Nantes Angers Montpellier Dijon Monaco Lille Toulouse iyo Sylvia Strasbourg iyo Menez Marseille waa laga adkaaday Angers way adkaatay Montpellier ay ka adkaaday Dijon hal gool Monaco ay ku bixeen Lille 3 gool eber Toulouse ayay nagu adkaaday kulamadaasi ayaana maalintii shalay ah dhacay kulamada maanta jira ayay noo soo socday balse sheekooyinkeena kale ayaana sii eegi doonaa ciyaaraanka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester City Philip Foden ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda City dayga kooxda City Philip Foden ayaa ka jawaab celiyay wararka xiyanta ah ee ka soo baxay kaas oo ku aadan kooxda uu amaahda kaga tagay kadibna markuu uu waayay fursada boos joogto ah macalinka hogaamiye Manchester City Pep Guardiola 19 sano jirkan ayaa kaliya 2 kulan xagaagan kooxdiisa ku soo bilowday horyaalka kubadda cagta England ee Premier League inkastoo lagu tilmaamay inuu yahay midka ugu wanaagsan ee qad dhexe ka ciyaara Foden ayaa sidoo kale qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay kubadda cagta horyaalada Europe ee UEFA Champions League kadib markuu 2 gool dhaliyay 2 kulan caabin loo diiwaan galiyay isagoo ciyaaray 187 ciyaarood ama daqiiqo ayuu ciyaaray Foden oo ka tirsan xulka qaranka England ciyaaryahanada da'dooda ka hooseysa 12 jirada ayaa loo soo jiitay in kooxda amaah kaga tago suuqa Janaayo si uu ugu hormariyo waxqabadkiisa hanaanka kubadda cagta haddaba Pep Guardiola ayaana xiiseynayay in xidigan oo amaah muddo dheer ah ku diro iyadoona Foden uu rumaysan yahay in uu go'aan sax ah ka qaato maadaama si joogto ah kooxdiisa boos joogto ah uga helin mar la weydiiyay haduu uu doonayo inuu koox kale ku biro Foden ayaana shabakada 9 minutes u sheegay iyo wax la mid ah ma ahan mana ciyaarin wax daqiiqado oo gabi ahaanba hadda waxa ka soo muuqday City 50 kulan kala tirsanaa muddo dheer waxaan rabaa inaan sii joogo halkan muddo dheer ayuu sii raacay ciyaarahan Foden kaas oo arka bedelka ama inuu sii joogo halkan waayisa mustaqbalka inuu aad ugu wanaagsan yahay Foden marmar qaar kooxda kubadda cagta City bedel ay ku sugulaysaa isagoo bandhig cajiib ah halkaas ka sameeyay ciyaaryahankani geesta kalena hadii aynu eegnana xidiga kooxda Juventus Cristiano Ronaldo ayaa sameeyay rikoor oo xidig kale kubadda cagta sameeyay kadib goolku uu ka dhaliyay kooxda Arsenal kulan tirsanaa horyaalka Serie A